iyadoo maalmihii u dambeeyay degmada Marko ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ay ka soconayeen shirar nabadeed oo maamulka sare ee gobolka Shabeellaha Hoose uu la yeelanayay waxgaradka magaalada Marka ayaa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Marko oo isugu soo baxay magaalada Marka Caday waxa ay soo dhaweeyeen dadaalada nabadeed ee iminka Marka Caday looga gol leeyahay in lagu soo celiyo xasiloonida magaalada. ودبكي هو إلهي نجساري الحمد لله شكر العالمين الشعب كان ودب قبي دبكي إله ودامي ما تحك الدمبيس وحرجينا نبتجلي إن الله وحد من دولة كفر قلبات إن يكالنت هذا كجيست أيضا أي ريح مسؤولية السر أو نرجوكتو ولا له هينو نسوق المدين فرتون دولة حق جويش في دسي جويش أيضا في سن ويكن ويمدين وما هسني خير الله سي وحنهم مقطع في فعله أو نبضات وحين بدن علاد كوسو جرني حتى وحنهم مقطع nabad baa noo muuqato. Gudoomiyaha degmada Marko Xasan Cumar oo ka hadlay goobta ay dadkan isugu soo baxeen ayaa ugu horeyn gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ku booriyay inuu kala qayb qaato dib u howlgelinta isbitaalka dhexe ee magaalada Marka Caday oo iminka gabi ahaan baa shaqayn. nimada leh aan loo kala harin iska dhicinta cadawga iyo isgargaarka guud iyo banaanba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. mudana gudoomiye sidaad warkooda ka dheehanayso odayaalkii hadlay halkan waxaa jiro baaho aad iyo aad u dhiban oo dadku ay u qabaan asaasiga nolosha bini'aadinka ay halkan ka maqan waxaa baahi loo qabaa koow isbitaalkii degmada Marka xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waa xiran yahay. Maxamed Ibrahim Barre gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ugu dambeyntii sheegay in maamulkiisu ay ka go'an tahay in magaalada Marko laga dhigo meel xasiloon waxa uu ugu baaqay bulshada magaalada Marko in lagala qayb qaato. salaan kadib farxad weyn ayay ii tahay maanta inaan idinkala soo qayb galo banaanbaxa nabadeed kaasoo lagu taageeraya nabadda iyo xasiloonida iyo qabashada magaalada Marka la qabtay ee ciidamada xoogga dalka ay qabteen lagu taageerayo iyo soo noqoshada kaabayaashii xasiloonida iyo nabadda ku tiirsaneed mar walbaba soo noqoshadeeda lagu taageerayo aad ay farxad iigu tahay maanta aan la soo koobi karin. sidaa ogtihiin degmada Marka waa caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose taas oo ahayd hooyadii gobolka Shabeellaha Hoose oo dhan laga wada maamulayay. nimid mar allaal markii ciidamada xoogga dalka ay qabteen imaashaha aan dhibaato inaan la qaybsano nabadgelyadooda inaan kala shaqeyno inaan xasiloonidooda kala shaqeyno dib u heshiisiinta aan kala shaqeyno in isdhexgalka bulshada sida isku dhexgal lahaayeen oo suuqyadooda ay ku furan lahaayeen kawaanadii ay ku furan lahaayeen qaybaha kala duwan ee magaalada dhan ay ku furmi lahayd ayaan ka shaqeynaynaa. isbitaalka degmada Marka isbitaal uma aha kaliya degmada Marka uma aha. Abdiwali Ali online TV-ga caalamiga ah ee Universal magaalada Marko.